xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa booqday caasimada wadanka Soomaaliya magaalada Muqdisho markii uu halkaasi gaaray ayaa waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna ka wada hadleen guud ahaan abaarta ku dhafatay geeyiga Soomaaliyeed 5 milyan oo qof ay saameyn ku yeelatay oo barakacay abaarta ku dhafatay Soomaaliya qaramada midoobay ayaa hore u sheegtay in laga dayrinayo abaarta ku dhafatay Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya abaarta ku dhafatay afarta dal ee ku yaala qaaradda Afrika ayaa waxa ay barakacay 20 milyan oo qof qaramada midoobay ayaa hay'adaha caalamka iyo deeq-bixiyaasha waxay ka codsatay in la taageero wadamada ay ku dhafatay abaaraha 100 qof ayaa u dhintay abaarta ka dilaacday Soomaaliya qaramada midoobay ayaa sheegtay in abaar baan ay ka jirto Soomaaliya Yaban iyo Suudaanta Koonfureed iyo Nigeria waxayna abaartani noqonaysaa mid lagu wada in ay ka darto tii 2011 ka dilaacday Soomaaliya qaramada midoobay ayaa waxa uu Antonio Guterres uu noqonayaa xogayihii saddexaad ee qaramada midoobay ka tirsan ee booqda caasimada Soomaaliya Muqdisho tan iyo 1993